بسم الله الرحمن الرحيم وحان سلام يا شعبك الصوماليين ميل والبو الدنيا aad joogtaan waxaan maanta halkan message ugu dirayaa oo badbaadinaya qabiilka hawiyaha la yiraahdo aniga waa ogtihiin ummadda Soomaaliyeed oo dhan badbaadsada dir iyo daarood iyo raxaweyn iyo cid kasta oo Soomaali ah ayaan haddana labada qabiil in aad u ilaalsado waxa kamid ah ogaadeenka iyo nimanka la yiraahdo hawiyaha labadoodaba waxa weeye gumaysidid iyo shisheeyid hawiyaha maanta hadalkayga haddaad yeesho wallaahi oo billaahi oo tullaahi Soomaalina magac baad ka yeelani dalka Soomaalina adaa weliga xukumi doona haddaa idiido inaad gumoobi doonto oo gun noqon doonto oo Soomaalidana ugu nolol xumaan doonto ayaad maanta aad la kulmi waxaan ku sheegayaa qorshaha cusub ee la degay ee la gabagabeynayo anigana inta qorshaha uu ka dhacay khadka ma soo galayo illa step aad ka aragtaan bil kastaad arki bil kasto ilaa bisha October baad arki waxa aan ku sheegayo waxaana ka bilaabanaysaa bisha hadda aan ku hadlay afraad bisha shanaad guusha ummadda Soomaaliyeed iyo guusha xornimada Soomaaliyeed waxay ku xiran tahay ciidamadaas maanta gadooday bay ku xiran tahay ee hawiyaha waxaana lagu ataagareen doonaa sababtaan hore idinku sheegay laba wadaal rabaa loo jeexay wada lacagal dawladda laga sugaya hadii la helo in lacago lagu gubeeyo markii lacago lagu gubeeyo in la cuno macala iyaga dhan ma arta dhismanta laga dhigo oo hal ciidan xataa la kala diro oo la kala baabi'iyo lama afinayo laba jeerreeba lama badbaadinayo taas horta niyadiin gashanaysa caawa waxa kale oo la qorsheeyay in UNISOM loo adeegsado oo weer culus lagu qaado oo haday isdifaacaan oo ay ka raayaan waajibka maalinkaasayto kooxdaasayto waxaana arintan amray dawlad madax banaan oo arrimaha ka dambayso oo dawladaha waaweynka ah iyo Ethiopia iyo Soomaaliya iyo waxaana dhici doono shir degdeg ah oo ay saddexdii geesoodka ah dib u kulmi doonaan Farmaajo khayr balkii li jiray Abiye iyo Asiyaas Afwarka waxa laga yaabaa waliba inuu haleeli waayo Farmaajo oo Abiye uu wakiil ka noqdo Abiye uu la kulma macquul gal ah waxaana lagu qondayn doonaa ciidamadii gali lahaa وين إصدبا سعودان أو وحاول بدي اللقب صدي بدي عيدمدا دي صدح وحلا صوتا لبي طبعا مركب أو فرانسيسكو أوسيي دبي العيت دي كشف تصوص عطو أو بدأ أنا اللي جليا بيشن أكتوبر نوفمبر أفراد أنت لما أنا بدأ واقع أركسم حق قرب سعود صدح مشين بقى قرب سعود وحال يجري هدارته عيدمدا إن عقد الصوغلان هوية أذيك أو هو كتلقي فرناجو أنو نمانو أنا حقيقة دي شيء فرناجنا مشين كاس أيو فلنا يا وحانو إدين بلنقاضيا هدي أي كوجوليستان أو عيد ما دال الصرو أما العقل القصرو أو ما أنت وطلدا أن أشجع هوية يلوي فوالله أو معبود بنقول دارنا يا عيد ما دا إثيوبيا سوق لايو وحانو إدين كانوا مركه هو كانوا نقدروا ننكستو أو سياسي أو هوية ننكستو برلمان ننكستو جناح صدله إلهي معبود كان قدر حبس أو هوية الله بحدنا حبس هوية هذا بحث إذا سيدي الصومال دلوا قاعدين يا ولقين هاي أمينين ولقين ما إذا كان لمن دور مركز أنت إسرائيل قاجستان أيا أنت إسرائيل قاجستان والله بالله طلع حتى إن فنتر اللودري ديارها الكتر الله ينايا وإذا كان لمن دور الشم بقول أو كل أو هوية ما أنت لكن أنا بقول لمن أيا ذلك كود دفاع كتر قبل مدينة شرفتني أن أكون صلى الله عليه وسلم ciidamadan labada wada ku soo socota oo bishan intaan wiigan soo socda arki doontaan lacag badan baa lagu harqin doonaa oo dawladda ku harqin doonaan waxaana dhici doonta fiiriya baarlamaanka Soomaaliyeed inuu fadhiisto oo Farmaajo iyo khayra ka hadlana rajay idinka gelin waxa la kulmay gudoomiyihii baarlamaanka niisada waa arkaysiin waxa la kulmay dawladihii waaweynaa sida dawladihii waxan watay oo kamid tahay dawladda Israa'iil waxaa lagu yiri hadii ay kulmaan baarlamaanka kalfadhigan baaj fasax dheer gali inta October naga maaweeli millions dollars waxa rabtana sheego contracti waa la soo kala qaatay mursal ha uu nin xilibaan uu ka qabanayo ninka la yiraahdo mursal warqad iyo uu ka qabanayo ma jiraan ku xisaabtama baarlamaan in baarlamaanka Soomaaliyeed isku inta isu xilqaamaan si degdeg ah kalfadh u sameystaan oo ay ka takhalusaan oo gudoomiye ku dhistaan oo halka ay dal ku badbaadiyaan mooyar haddaad ka sugtaan mursal mooshin intuu qabto oo Farmaajo iyo khayr ka soo horjeeso kabaha raashinka isaarsan kabaha
lacag badan baa loo ballan qaaday mishinka geli baa la yiri haddii kalfadhiga xataa la furo oo ay noqonato in qasab lagu furo ha soo sheeka qaadin guddiga joogtadana iyo soo sheeka qaadin wax farnaajo iyo khayriye ku samaysan iyo soo farqaadin baa koort nugusin ilaa October baa lagu yiri waaya waxaan u sheegayaa ninka siyaasiga hawiyo sugayo rajaalka kale ama doorasho rajo kale fa wallahi alcadiim waa lunsantahay wallahi waa lunsantahay maanta garab si ciidanka lacagta aadaysan ciidanka si ninka ganacsada oo hawiyo oo maanta dib u sudhigayo fa wallahi bada lacag yeelinayno billahi taala ee si ninka hawiyaha aniga waxaan talada aan hayna waxa weeye marka ciidamada ay weeraraan muqdisho ee hawiyo uu godoodo xamar qabsada xamar maamul ku dhawaaqda wax dawlad la dhaho iska ilooba laba sano umada Soomaaliyeed soo hilowdo labada sano idinka sanadaasito gobonnimo ku noolaada dhaqaale ku noolaada muxuu qofkii Soomaali meesha soo dogo nolol iyo wanaag siiya oo Soomaalinimo idinku yimaado annaga DKM-na hadda waxa weeye dadkii dhalinyarada ahaa ee aan ugu talagalay dalka inay difaacaan oo iska celiyaan qabyaaladii baa wali ku jirto annagana waxa inaga balan in idinka idin nimaano oo idinka ay idinku adeegsano inaan dhammaan gobolada kale dhan xoog ku qabsano xoog aan baryahan san ku dulle inaan ku qabsano haddaan DKM-na DKM وكتاب القرآن وعدالة الإسلام وشيشيديد وقبيلديد لكن ما أنت وحان ربا أو قرب سنة أو نهويها عن أصل شقادة وحيتاي إذنك أيها قلنا مديدها أنت كلاوا قل مودي بلن ويسليبتي سومالي لن ويسليبتي جبل لن ويسليبتي فوالله كواس إننا دقاقين قميس يهدي القميسي ديار بوين قبيالة بان الدكتي قبيالة دينو كو إن سحرسين أو وحن أركان وحن قبيالة داكين ساسا أيها أصل شقادين لكن مركي أركان أن إني قلدن جدودين صومالي إيش أركتا مركي أركان إني هوية جدودين ويسكت دفاعين ووحن عليا سيدي با إذني إيماني حمر وحرمت عد كم مرة ملا سيدي با يجو لأن يرضى ضرن أو مارت ديار أو جبنيمو أو إن صومالي دبلو حري يجا نوع إيمان والله أو دياشر يجا مركا كتقلص دون وحن إذن قلت لنا يا هويو إلا أنت أركتان هداد أركتان والماس الدنبي هل كان أنصوغله كبار راسينك إسارة لكن استمك أو أرتان أركا waxa ka bilaabay doona ciidamada in lacag la siiyo oo lacag lagu gubayo markay lacagta kala qaataan hal habeen baa la xaqaya oo laga lido waxa soo socdo haday diidaan UNISOM iyo ciidamada uu soo wato farnaajo ee la qabiilka ah ee la keenayo ee hubka shirees ku rakaban iyo waxa imaanay ciidamada Itoobiya halka joogo iyaga dhinac afar goysood weerar idinku dhici doona inta aan qorshaha idinku dhicin war xamar gala oo qabsada warxamar gala waa badbaadadiina hadaa rabto caruurta hawiye inaad muqdisho joogto iyo qofka muqdisho inaad badbaadiso hadaa u baahan tahay wallahi oo billahi oo tallahi maanta xamar gal farnaaji iyo khayra ka sar waa idiiday Soomaa ya ilaahay oo xamar haduu deganaanay nin hawiye ah xataa kaba raashinka isaar doonta kaba ninka maanta lacagta iska leh ee sugay oo liyambiga ninka ganacsado dib isu dhigayo oo maanta waxaan idin kula talinayaa hawiye oo dhan hashiro lacagta oo dhan ciidamada kaafiya ciidamadiina hawiye lacagta idinka siiya iska gura canshuur diida waa xaraan canshuur aad bixisaan waa xaraan qadan ah sababtoo ah ciidamadiina hadiiba laga jaray canshuurta saad ku bixinaysaa بريتو العشرة عسكري يدفع له عسكري يدفع له سي عشرة هذيك كل دواقة بريجنا سيدا حمرة إن الله والله بقول دور أقرتين لما نوحي هوي أردن ما أرتي أون جرا بدالي دينا كحكت والله إني در مالي يلين دورين والله إن سحنك حرية نهدلك اسكي اللوبة سومالي نما وحلا ده اسكي اللوبة دولة نمي اسكي اللوبة نمان ماشي واحد جوجو عقدة الشيء أو قبيل استيال أو صعدوا أمات إلى جمادان أو أحمر دبضة قوة تولي قط هي اتجمعوها قالت دبضة قوة وولي قط أصل يسروا لها إنه لان كرين إن دكتور نقدان أو حاران عنا المويان والله إنس اسكو قصونا إن النولادان أنا جو وحكم مبقى أنا جو وحكم مبقى كنت هالشيء ما أنت وإذا طلعنا يهويو أنا جو وايد أكتين إلهي صومالي ده أردنا وايدين شيء أنا على قبيل كي يدفار كان معنا لكن أنا جو هوي وحنا إلى الصدى أوجدن إن بالكي ولي قبضن أوجدن كان هذا جبضن ومهر مش شيء كون وحنا كهلا يا نود صومالي قلب جوج أو لفت حجامينيس مجا أو لفت حتى أوركا أم كهلا وحنا إدين شيء يا مجا أو أرلف كمجرو أوجدن وأور سياسي أو أدغال ما يحرمه وصومالو دم إلك كومنته لكن أوجدين كان كهلا يا ديجان كجو أنت ديدين قبل لماذا إرادين يعني صومال لماذا كنت سيد محمد عبد الله حسن إذا كان هوية وأديدنتين وإنتاجيريا حميهن هدو آبها يهوية صوّد حتى شرق الله وأي شيء ورسك جيران هي وتوجي إلى كفرتين
cid kale maal u ahaybna maya war iska ilaaliya iska ila wallahi waxa la yiri afar maamul waxa la yiri afar madaxweyne afar markii ummadda Soomaaliya halaagsamayso leadershipka waa afar waa rushag mid ah mid la yiraahdo 50-50 oo run iyo been sheego boqolkiiba kontona waa been kontona waa run mid beenaala ah iyo mid aamusan baa la yiri fiiri afarta hadda isu ka qabsataa la yiri si u kala diriyeen mataqaana waxa la yiri kan run sheega waa kan dalka hormariyo waa kan Thailand-tiga leh waa kan isku kalsoon waa kan ummadana u hogaamiyo barwaaqo iyo sida ninkan Erdogan oo kale كان 50-50 وأكون أليكس كوي ماذا ما أنت ما دخل أدونك كجر طردن وما أنت بين شيء جاي برين برون شيء جاي برين ما أنت بين شيء استاذ أولسكي اللي قد دالي وما تاجر إيش يسفرها بدنا قارن واحد برين مراجعة ما أنت واسكت مرافعتها وقارن ما كواس اللي هذا 50-50 بين الله وحلا يري هذا وتوك دن عن كلهن لكن وقت يستاهل السوق نعاك تتكون بابته بس لكن وقت يستاهل دور صدق بكم صار لابته ninka ugu xunaa la yiri umada halaaga waa ninka aamusan baa leaderka aamusan waa cadowga umada halaaga la yiri oo ay ka soo noqonayeen meel ay ka soo geeyeen wuxuuna la aamusan yahay cadowtinimo uu hayo dadka weeybil ma aha wax kale waa dalkana ma jeclo dadkana ma jeclo diinna ma laha baa ninka noocaas haduu leaderka aamusan uu farbadiyo waa kan umada halaaga ugu darbarka laga ma kaco maanta waad haysan baa malinaya qaar baa idin rishinaya waxaan kala halkan aan ku soo gabagabeynaya inta hadda arki weydo intaas aragna message cod daba maqli maayo mana arki doontaan maanta nin kasta oo Soomaali ah uu istaag afgambiskan caadiga u dhacayo uu istaag baarlamaanka ninka ka tirsan ee hawiye ah ninka lacag leh ee hawiye ah haduu shir degdeg ah oo beesha hawiye aad qaban weydaan oo isku dhaarsan weydaan oo kitaab quraan inta isu martaan dhaqaalaha dhan ciidankiina aad siin weydaan fa wallahi waa gumoobi doontaan oo billahi oo tallahi bisha October baad ka shalay doontaan wallahi baad bisha October ka shalay doontaan arrintii waa la dedejiyay inaan been sheeginin ciidamadaas ay ku xiran yihiin maanta laga takhalusayo hadii laga takhaluso isla raacada farnaajo duulaya asiyaas afwarqi wuxuu tagayaa abiya ciidamadii baan soo galayo ciidamada badana way soo galayaan waxay ku xiran tahay dhaqdhaqaaq meel kala ma laha axmaar oo ogtahay dadka kale dhan way isdhiibeen inta hawiye baan joogto waliba ma gartay aad ku dhacay mid kale qaraxan yaa sameeyay caawan ku sheeg madaxtooyada laga soo aruuriyay culeyskan siyaasadeed bana la iskaga baryareynaya dadka la laynayo ani waa ku sheeg ifri qarax oo dhaco waa maalinka ugu xuntahay dawladda qalbi dhagax kiibu ahaa gilay October 15 waliga soo bar كان حتى وحاب سي شيء أنا أعطينا سي شيء بابا وحاب سي شيء ذكري أو نكل لها مدحتوي إذا لقصوا أولي وحنا فهد ياسين بابا سي شيء أو شيء عيد ما دتك بعد بوليس كي واحد بيجي هكول بهارنا هكون مشغولين وحصوص على قرحية قرحية كوا كلا صوص على بوليس كوا كلا قرحية ويز دبص عنا وعلى قطر قال إن عيدا كلا ده أياك سمايو كتب بي أسود ده عيد ما ده سلوه وين هذا الربع عيد ما ده هوي waxaan oo dhan waa mission la rabo ciidamada hawiye in lagu weeraro la socdo ani waa idin sheegay oo Yurubtan lagu calool jilecsanayo caalamkana lagu calool jilecsanayo waxaana laga soo abaabulay qaraxyada kuwa kalena waa soo socdaan waliba ka daran kuwan oo dhacayo oo arki doontaan iyo dilil ka dar faray waxaas oo dhan waxa la doonaa kuwana ka dambeeyo iyo si oo ka dambeeyo si loo xalaalsado in ciidamo Itoobiya ah ay weerarka la galaan ciidamada la weerarayo hawiye taariikhda caawani ugu soo xasuusta hadda waxaas oo dhan aad iska weydara ka baa raashinka isar انت waxa ay ka dhacayaan hadan soo gal khadka ya waxaan ahay beenaala khayn ah laakiin maalinka aragtaan waxbaxbad u arkaysaan talaabada qaada hawiyo sida ugu dhaqsaha badan iska ilooba siyaasad iska ilooba Soomaalinimo iska ilooba waxaas oo dhan hadaad maanta rabtaan inaad badbaadaan dhamaantiin kulma go'aan cad soo saarta ciidamadiinana maal kasta muqdishona qabsada ka saara waxaan kale inta dhan Soomaali markay isu ma talaab anagana dheekay markaas ay iimaanina oo halkaasan ka aasaasinaa Soomaalinimo aan wada weerarayna dhamaan inta u shaqeynaysa kuwan xunka u shaqeeya maamulada maalinkaas wada weerarayna hadda tala yeelso waayo anagu dheekay waxaan inta iimaanin bar dhalinyarada inay kacaan inay hubka qaataan inay dagaalamaan waxaan ogaaday qabyaalad inay lagu qarnayo oo ilma xaraan oo lagu yiri ana xukumi jiray dictator baan aha xaraan baan helayna meelooda dadkan anaga xukumi jiray waxa laga wada dhadhacsiiyay baaki way carruurta yarka oo lagu wada abibi marka waxaan idin leeyahay تستمانت هويو هدي أنا هاللون سبيد دم بسوق الوكي يقدم بي يا كبات راسين كده أنت سنصدق جوسوت كبرد بقى أنا أيسن عين شركة والبرلمان اسكي اللي هو فرما ملعوة إنسى جيا ولا لا كل ما مر ملا والأركيسن أنا هاد وحكى الله يملها والأركيسن محوا قدامي برلمان مرسل ولا لا كل ما لعكت الدون وغفرة بدنا نميسك الله صار ما نقادين يسدى لي هذا لكن تم تلابا قداد جدا أداة تجايا لي وتجي دونتا
أكو شيءنا نكان وعب صوتي رن إن دعوا أركي كالفرد يجن ما دعايو هدو معنا هدا صوت شقته وحرايا كالفرد ولا صوت شقته تاس إني شيء هكو حسابته من حقاس تاوحن أنت سياسيين تا هوية الرجال كله دولة الديمقراطية وروحن إذا كملوا والباب نقول على الجلسة صدا وحلك اللي نجيله ورجع مركز دمر وانا نقول حماية وماشي وحيا الله بإنت صعبة مركز خير بإيدي رجالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.